بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa ogbaad healthy channel oo maanta inoo wada cabitaan fitamiinis ah oo mineral leh oo wax walba leh oo mucjiso ah. cabitaankaas oo maanta cabitaanka maskaxda la dhaho waa inoo cabitaankeena maanta waxa weeyaan qumbe iyo saytuunka midka Soomaalida u taqaan waa noocan. saytuunna waa midka kale oo quraanka lagu sheegay oo saliidiisa iyo mirihiisa la isticmaalo, laakiin Soomaalida waxa taqaanaa saytuun kan waa la cabaa. cabitaan baa laga samaystaa, faa'iidooyin badan iyo health fara badan buu leeyahay. waa miraha qumbaha waddankeena aad buu uga baxaa, marka faa'iidooyin fara badan buu leeyahay. faa'iidooyinka rabnaa maanta inaan sheegno iyo caafimaadka laga helo. qumbadii haddan kala jabinay, waa kana qumbihii waa soo diyaarinay, taas aan soo jarjarnay. maanta cabitaan health ah oo maskaxda u fiican waa rabnaa inaan maxaa ku raadayay aan samaysano. haddaa rabto inay maskaxdaada iyo functionkeeda iyo sida u shaqeynayso ay fiicnaato, qumbe cab. saytuunkiina waa kana saytuunkiina koobkaana ku shiidanaynaa marka. cabitaan heer sare ah. kana waa biyo aan ka miiray laftirkoodan raba inaan ku shiidan raba insha Allah hadii la idmo. kana waa saytuunkii. si fiican baan uga sheekeynaynaa maanta, faa'iidooyinkoodan si fiican uga sheekeynaynaa. laakiin marka hore waan soo shiidayaa. markaan soo shiido baan rabaa inaan bal nafaciisa iyo siduu yahay maaragtay aan ka sheekay insha Allah haddii Ilaahay idmo. wax Ilaahay abuuray oo aan daawo lahayn ma jiraan. dhirta Ilaahay abuuray dhan waa wada daawo. marka bal insha Allah shiidaynaa marka. shiidida marka qayladeeda iyo waxaas aan nacayaa. isla meeshaan ku shiidaya, ma dheeraynay insha Allah hadii la idmo. waa dhamayna marka, waa soo shiidnay. waa wax maasha Allah soo ma jeedaan. maasha Allah meeshaan hawsha ka dhacday, hawl baa ka dhacday. waa soo miirayaa walaalayaal. waana soo miirnay, waana soo hagaajinay. wakaas koobkaas buuxo oo qurux badan baa ka soo dhignay. والله إن قرر لقى وكان حتى مركل الدميو مركل فايدوين كيسان بلابنا بكتيريا ذا تركوا كسارة محاكر هذا إن إرتشنا وليه وضدك دفاع تركوا هجاتيا وإنه في عين هاي ويد لص ويو ميسانك وكادميا حق عروش إذا استف كانوا في عين هاي فايبر باولا الكترته فيتامين A كترته D كترته K كترته قفك ضوء عنا حتى عنا هان وعنا عبتان هان وعبه gaajadu ka bi'iyaa. lafa xanuunka iyo waxaas qofka xanuunka haduu dareemo jirkiisa jir xanuunka waa daweeyaa. maxaan ku raadayay immunity-ga iyo difaaca jirka kor u qaadaa. maskaxda iyo neerfayaasha iyo unugyada sida u shaqeeyana aad iyo aad buu maxaan ku raadaa ula shaqeysaa bahashaas. waa wax yaab leh oo cajaa'ib weeye. marka waa wax yaab leh. biyaha hadda arkayseen hadii kaligood iyaga nafaqo gaar ah dadka daacuunka ku dhaco ama dadka jirooyinka ku dhacaan caloosha la xiriidha iyo mindhicirka iyo dadka fuuq baxa sida ama dhidida ama shuban badan ka yimaada waa la siiyaa. si toos ah wuxuu soo celinayaa wax alla wixii ka dhumay. waa subxaanallah. cudurkan la yiraahdo ilowshaha ama dadku markay waaweynaadaan ku dhacaan ama dad yaraaba ku dhacaan oo maskaxda ku dhaca buu aad uga hortagaa. qumbaha cunidiisa ama saliidiisa ama maxaan ku raacno cunada hadii lagu karsado xataa maasha Allah midka powderka iyo midka badada iyo midka creamka kulli waa wada daawo. dadka qalalka qaba maadaama maskaxda qalalka yimaado aad buu wuxuu taraa. waa wax fiican oo maskaxda maadaama uu wuxuu tarayo dadka qalalka iyo ay ku dhacaan waxaas oo dhan wuu fiican yahay. maskaxda qaabka u shaqeyso aad buu xididadeeda iyo neerfayaasha iyo wax oo dhan si fudud buu ka dhigaa hawl yar qofka isticmaala. dadka cholesterolka qaba cholesterolkooda dhan ama uu baabiyaa ama hoos buu dhigaa. saliid ku jirta waxay tahay saliid loo baahan yahay oo saliid jirku u baahan yahay sida midda
afakaadhada iyo oliifta oo kale saliid lamid ah oo lamid ah buu leeyahay qumbuhu. maqaarka aad buu fiican yahay dadka hadda qumbaha marsada ama kareemada qumbayaasha laga soo sameeyo aad buu fiican yahay maqaarka. qofka maqaarkiisa wuu jilciyaa shine buu ka dhigaa wax la dhalaalaya timaha lamid ah. hadda ilkuhu hadii ku xanuunayaan oo kale waa wax mucjiso geedkan. hadda dhibic saliid ku shubto daloolka ka haya iliga ka hayo xanuunku waa ka tagayaa. wixii faad jirka ku jiro dhan wuu yareynayaa waliba caloosha midka caloosha aad buu u yareeyaa. haddaba see loo cunaya saliideeda la soo qaadanayaa. saliidda markay tahay oo saliid hadda waa inay horta organic tahay waxaas waa inuu wax organic yahay waxyaalo la soo shiilshiila ma ahan. qofka obesitka ama overweightka ah 2 qaado buu wuxuu ku darsanayaa cunada subaxii oo dhan xabadna qaadana subaxii buu ku darsanayaa qaadana galabkii. waxa la hubaa qofka haduu 4 week isticmaalo in dhexdiisa ay ka dhumayso 2.87 cm oo westiga ah meesha oo dhexda ah baa qofkaas ka lumaysa. war waxaan daawo ilaahay wuxuu sameeyay weeye. waxa soo haray midka kan la yiraahdo guwaafaha la dhaho ama midkan la dhaho saytuunka. saytuunku isna waxyaab la weey waa wax aad iyo aad u leh dhulalka kulaylaha buu ka baxaa sida Afrika annaga wadankeena wuu ka baxaa. saytuunkana dhahnaa saytuun kale wuu jiraayo midka kale oo saliid laga sameeyo quraanka lagu sheegay. wadnaha wuu fiican yahay saytuunka laftarkiisu. xanuunada maxaan ku raahdaa oo aadka dumarka caadada iyo waxaas gabdhaha ku xanuunsada haday cunaan isagu sidiisa ah waa kula taleenayna inay cunaan saytuunka inay cunaan. dumarka xataa tuubooyinka iyo waxaas fallopian tube ka xiran yihiin ama xagga dhasha ka cabanaya saytuunka aad buu u caawiyaa. xagga miisaanka wuu yareeyaa. kansarka qofkii kansar qaba ama kansar haddii rabto inaad ka hortagtid waa la cunaa. difaaca jirku adkeeyaa. jirku wuxuu u fiican yahay maqaarka. jirkan wuxuu ka saaraa wasakhda iyo bakteeriyada waxa alla wixii sun ku jirta wuu saarayaa. hadda subaxii oo kale haddaad xabad ama 2 xabad shiidatid oo wax yar oo liin ku darsatid oo aad wadid maxaan ku raad 2 week jirkaaga nadiif buu noqonayaa clean buu noqonayaa. wax kasta oo jirka korka laga mariyo waxa ma taraan waxa wax tara waxa gudaha laga soo cuno baa wax tara. marka fitamiinada laga helo marka waa waxyaabo waxa kamid ah vitamin A baa ku jira D baa ku jira C baa ku jira iron midan la yiraahdo oo dadka dhiig u badisa baa ku jirta. vitamin B baa ku jirta oo waxyaalaha qolofta laga helo oo fiberka waxaas iyo calcium baa ku jirta oo lafahaaga dhan hadaa cunto lafa adag baa yeelanaysaa. potassium baa ku jirta iyadoo u fiican lafaha iyo waxaas oo cusbo ah. magnesium baa ku jirta oo murqaha iyo waxaas dhan u fiican iyo meelaha iska gaan murqaha iyo lafaha baa ku jirta. marka subhanallah dadku ha cuneen qudaartooda ha cuneen ilaahay siiyay oo dhulkeena ka baxday organic ah. dabadaha mid taala hadda waxa weeyaan waa mid aan loo baahnayn oo organic ah oo la duray laakiin annaga dhulkeena maanta qumbana laga waayimayo qumbana ma laga waayayo saytuuna laga waayimayo waa kaasa. hadda waa isaga aan soo jarjaray midka kan qumba iyo kiyaan jarjar si loo arko hadda koobkeenna waa kaasa caano garoor laga ma yaqaano yaa maanta ila cabiya hadda. asxaabta ugbaad wax kastoo faa'iido waa soo gelinayna marka like-ta share-ta iyo maxaan ku yiraahdaa comments-ka nagala bakhaylin dhirigeliya fiidooyo waxa soo socda caafimaad maadaama caafimaadka wax ka naqaano. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.